wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka saaqadaada toddobaadka oo aan isbuucan ku eegi doono doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland oo lagu wado in bishan gudaheeda ay ka qabsoonto gudaha magaalada Kismaayo iyadoo durbaba laga dareemayo magaalada xiisada la xiriirta habka doorashada oo ku kala aragti duwan yihiin dhinacyada. Shalay waxa war-saxaafadeed uu soo saaray urur goboleedka IGAD ay ku sheegeen in Jubbaland looga fadhiyo inay ka qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal ah iyadoo haddii doorashada Jubbaland ay hagaagtana la sheegay inay tusaale fiican u tahay horumarka deganaanshiyaha iyo nabadda Soomaaliya. Isla IGAD shalay waxa ay la kulmeen airportka magaalada Kismaayo hogaamiyaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka qaarkood. waxaa sidoo kale xubnaha musharaxiinta iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee aanan ahayn dhinaca maamulka Jubbaland ay shalay ayaguna doorteen markii ay sheegeen inay ku qanci waayeen guddiga doorashada ee Jubbaland guddi doorasho oo ka kooban 11 xubnood. haddaba waqtigan waa sidee xaaladda doorasho ee Jubbaland waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqadaada toddobaadka oo ay marti igu yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah musharaxiinta maamulka Jubbaland labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo iyo sidoo kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isagoo ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi. soo dhawaada dhamaantiinba. ugu horeyntii waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan bal xaqiina maamulka Jubbaland sideed wax u wadaan waqtigan. Abdullahi Arxin Sahraad aad baa mahadsan tahay ka la socota Sahraad hadiyada maanta waa hal suulo wax badan oo bini'aadamku ku kala qabteen ma jiraan. Jubbaland doorashadeeda meel fiican bay maraysaa ka la socotana mandate iyo xulashadii golaha baarlamaanka wasfaada lagu jiraa la siin lahaa. waxaa xiga doona doorashadii madaxtooyada marka doorashadii baarlamaanka guddiga doorashada madaxa banaan baa wada sida dastuurkaba uu qabo Jubbaland jadwal bay sameeyeen marxalado fara badan baa la soo mariyay wajiye kala gedisan maanta waxay taagan tahay odayadii oo soo xulay xildhibaanadii waxa inoo xig waxa weeyaan in xildhibaanadii cid ilaahay u nasiibo ku guuleysto la kulmiyo la dhaariyo ayagana ay guddoonkooda doortaan kadibna doorashadii madaxweynaha la galo. bal dhinaca kale maanta iyaguna waxa ay doorteen guddiga doorashada u matalaya amaba guddiga doorashada ee Jubbaland ay maantana dhinacii mucaaradka amaba musharaxiinta aanan maamulka waqtigan ka mid ka ahayn ay doorteen iyo odayaasha dhaqanka qaarkood. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig waa musharax waqtigan u taagan xilka madaxtinimo ee Jubbaland waxa uuna ka mid yahay dhinacii doortay ayaguna guddigan doorashada. soo dhawow mudane Xidig. bismillaahi raxmaani raxiim. saara waa ku salaamaya adigii akhyaarta talaba waa salaamaya madaxweynaha ku-xigeenka xilka ka dhamaaday saaxiibkii Maxamuud Sayid in badan baan salaamaya. intaa kadib saara anagu xaaladda meesha ay marayso waxay noogu muuqataa maamulka hadda xilka hayay ee waqtigu ka dhamaaday inay dhiseen guddi doorasho si kastaba ha ku dhisaan guddigaasina uu noqdo guddi u adeegaya hal murashax oo keliya iyagoo ka leexday in ay noqdaan guddi dhexdhexaada oo murashaxiintoodan u adeegaya. waxay samaysteen harraac iyo shuruudo iyaga jeebkooda oo ay kala shaqeeyeen maamulka hadda xilka ka dhamaaday ee doonaya inuu kasoo noqdo. waxay qorteen ugaasyo iyaga u gaar ah. waxay samaysteen xildhibaano iyagu ay soo xusheen ayay rabaan inay samaystaan. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland Maxamuud Sayid oo waqtigoodii hadda dhamaaday wuxuu leeyahay odayaashii iyo dadkii iyo hawshii sida uu uga hadlaayo isaga shakhsiyan waa madaxweyne ku-xigeenkii hore dabcan hadda madaxweyne ku-xigeen baa waqtigii waa dhamaaday waa caretaker ama siihayayaal. ugaasiyada marka xataa qoys loosii kala baxo isaga qoyskiisa ugaasiyadii soo jireenka ahaa qayb badan oo kamid a ayaa banaanka joogta oo ay ka saareen liiska taasoo macnaheedu tahay nama ayidsana oo hawshayada sida aan rabno inaan wax u qorano iyo sida aan rabno inaan shaarkayada sida ekeysin ayuu kasoo horjeesan doonaa. beelaha kalena waa la wada mid taas ayaa tusaale cad ku filan. waa tahay Maxamuud Sayid aan siiyo maadaama asaga aad soo hadal qaaday si gaar ah ma jirtaa in aad odayaasha dhaqanka ama salaadiinta dhaqanka ee Jubbaland ay soo jireenka ahaa ee la yaqaanay aad ka saarteen meesha oo kuwa kale oo jeedkiina aad samaysateen. bismillaahi raxmaani raxiim. saaxiibkii waa salaamaya horta midaan raba inaan caddeeyo waxaa weeye horta maamul xil kama dhamaadee
cid la doortay uu xilka ka dhamaadaa waxa xilka ka dhamaanayo waa golihii baarlamaanka Jubbaland oo 4 sano la siiyey iyo madaxweynihii Jubbaland oo la doortay oo muddadiisii la doortay waajibaadkiisii weli ay dhamaantahay ka dhamaan laakiin Jubbaland waa maamulku waa jiriya waa hay'ado dawladeed oo dhisan oo jirayo oo sii soconayo dadka ama baarlamaanka cusub baarlamaanka hore xilka kala wareegi doona markii la dhaariyo madaxweynuhuna markii la dhaariyo madaxweynaha ama soo ku soo noqonaya ama cid kale ku guulaysto xilka ku wareegsanaya horta dawlad waqti kama dhaco kama dhamaado maamul saaxiibka dawladnimada meesha ka bax dawladnimada meesha ka baxdo sababta aan noqono koox qabiil iyo group based aan ku noqono waa wax kale laakiin annaga hadda soo far meesha wax marayaan waa meeshan ku sheegay xildhibaankuna dadkii shaaciyay inuu musharax u noqonayo tartanka xilka madaxweynenimada ayuu ku jiray oo bulshada badan buu la shiray shirar badan buu qabtay inuu damaca leeyahay laakiin sidaro registrationkii uu ku heli lahaa xuquuqda musharaxnimo muusan qaadan oo kuma guulaysan marka maanta waa xildhibaan saaxiibaya Jubbaland hore u soo dhisay haddana aan filayo inuu dhisi doono haddii alla yidhi midda odayaasha Jubbaland waa la casuumay guddiga doorashada madax bannaan baa casuumay deegaanadoo dhanna way tageen wada tashi ay sameeyeen odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen marka laba oday oo dadkii la casuumay ahaabaa banaanka ka noqday processka haddii 98% haddii la hayo oo laba oday banaanka ka noqdeen labadaasna waxaan rajaynaynaa inaan qancino oo processka kusoo noqdaan haddii alla waa tahay marka arrintan aad ayay buuq u dhalisay odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka qaar ka mid ah musharaxiinta hadda xilkaas u taagan kulamo ayay yeesheen shalayto warbaahinta la hadleen iikaada wax yar xidig aan kugu soo noqdo hal daqiiqo marka maxamuud sayid aadan adiga ayaan weli rabaa inaan kugu soo noqdo intaanan gaarin xubinta ka ah doodan dhexdhexaadka ee professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed haddii adinka aad laba oday oo kaliya aad leedihiin dabcan oday kastana qabaa'il ayuu matalaa dad ayuu meesha u haddii ay noqoto inaad odayaal kale abuurteen soo xaaladii unma sii xumeynayso jigjig meeshaada joog sida maanta ayaguba ay guddi hor leh u magacaabeen oo doorasho maxay dhalinaysaa arrintan cawaaqibkeeda caasha lilah saar horta annaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorto odayaasha qaab bay ku yimaadaan beelay matalaan waa duubad soo jireenna odayaasha Jubbalandna maanta lama dhisin waxay soo martay 2 sano ku meel gaara 4 sano doorasho dawladnimo waday intaaba odayaasha soo dhisayay oo registerka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adigu internet maanta Google Drive-ka guddiga casuumeen dhammaan ay aqbaleen way yimaadeen laba oday oo odayaasha kamid ahaa oo dadkii lagu casuumay ahaa ayay noo sheegeen guddiga inayna ku soo biirin oo ay processkii iyo foomamkii odayaasha qaadanayeen xildhibaanada ay ku soo xuliyeen ayna ka gadoomin inta kale 98% baan dhihi karnaa ama maxay ahayd markii laba loo qaybiyo 60 ama 70 oday la casuumay oo xaq u lahayd inay wax xulaan laba ka maqan ay noqoto labada oday oo ka maqan guddiga wada xasuud u socdaa inay ayaga arrimahoodii ama waxay ka diideen laga qanciyo ama nabadoono kale oo ayaga maxay ahayd isku beel yihiin ay wax soo gudbiyaan midda musharaxiintu guddigan dooranaya magacaabaya haddii adduunyada meesha kaga taalla ma naqaano meesha nidaam baa jira dawli ah nidaamka dawliga ahaa oo dastuurka iyo xeerarka u degsanaa isticmaalayo wuxuu dastuurka u ogolaana fulinayo ayaa doorashada maamulayay musharaxiintana xaq bay u leeyihiin saan la soconana musharaxiintu guddiga way shireen way wada hadleen dhexdhexaad bay u wada ahayeen dhammaan musharaxiinta registrationkii baa isugu yimid qayb baa diiday qayb baa qaadatay qaybtii diiday saaxiibkay xidda kamid ahaa guddiga way casuumeen waxay ka cabanayaan inay dhigeystaan kuma ay guulaysan ay umaadaan marka haddii taa waxaa loo qaadan karaa inay ka tanasuleen musharaxnimadii waxaan oran lahaa haddaa musharaxnimadii ka tanasusheen haddee maalin kale imaan doontaa 4 sano oo berri bay imaanaysaaye dalkiina iyo dadkiina u furo waxaan maanta jirinna ha abuurina bayna wada anfacayo saara adoo mahadsan horta arrinta ku saabsan odayaasha saaxiibkay waa ka xumahay madaxweynaha sayid sida uu dhigay sax ma aha bal hadduu xataa labada kusoo koobay labada kismaayay ku sugan yihiin almost intaan xasuusto 3 wiil ama 2 wiil lasoo dhaafay kismaayay ku sugan yihiin horta ma maqna
intaas keliyana ma aha ugu yaraan 25 ugaas iyo suldaan iyo nabadoon ayaa maanta igad kula kulmay xarunta UN-ka ee magaalada Kismaayo oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hordhigay 25 kaana sida ay sheegayaan waxaa lagu bedelay dad kale oo iyagu ay jeebkooda ka qorteen saaxiibkay sayid iyo saaxiibadiisa ay jeebkooda ka qorteen salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeedna ma aha sida askarta loo qoro in askarigana la ruseeyo mid kalena la keensada ma waa soo jireen dhaqana oo soo yaala oo taariikhdooda la yaqaan mana laga been sheegi karo mana noqon karto xaalad yar oo doorasho in dhaqanka Soomaaliyeed loo burburiyo kuwa kalena loo abuuro taana ma dhici karto waa midda ah xeerarka iyo shuruucda kuwii hore u degsanaa iska daayay kuwii maalintii khamiistii ay degsadeen 27 bisha ay degsadeen oo uu leeyahay registrationka way diideen registrationkooda shuruudaha ku qoran sahra waa aragtay waxaa ku qoran murashixii isdiiwaan gelinaya 10 xildhibaan waa inuu soo socdo 10 xildhibaanna ilaa hadda lama hayo su-aasha waxay tahay 10 murashaxiinta hadda diiwaan gashan aawa xildhibaanadii usoo socday 10 xaqiiqa keenay taariikhda la sameeyey waxay ahayd khamiis duhurkii la soo saaray gelinka dambe khamiis oo aan la shaqaynayno oo loo yahay xafiisyada in laga tago sabca lama shaqaynayo sabtiga subaxina waxaa la deadline waa dhacay which is aanay absolute wax procedure iyo nidaam oo la maray aanu jirin bank account aanu jirin waa la aragtay waraaqaha ay soo saareen adduunka oo dhan waa haystaa intaa marka laga tago magacaabista guddiga doorashada anagu magacaabayno golaha badbaadada ka tashaday ee odayaasha mirshan iyo labada tirin bulshadaas samaysata sharciga bulshadu sharcigii ay samaysatay Maxamed Sayid iyo tiimkiisa ayaa ku xadgudbay oo burburiyay oo waa dacwooteen andameye taas mar hadday timid waxa weeye bulshadii go-aan bay qaadatay in ay samaystaan guddi doorasho isla mar ahaantaana ay la yimaadaan nidaam dadka ay wada aamini karaan guddiga laftiisa ma afduudi karo 3 qof iyo 4 qof ma afduudi karayso bulshada way beesha caalamkaad la hadasheen igad ayaad la fariisateen oo airportka wataasa tira intaas laga hogaamiyaal dhaqan iyo la joogeen shalayto hadda waxaa muuqato adinka laftirkiina degdeg ayaa idinka muuqanaya arrinta xiisad ayay sii abuuri kartaa inaad sameyseen guddi iyadoo uu jiro guddi kale maxaad uga warsugu weydeen xataa cabashadiina aad gudbiseen iyo waxa beesha caalamku ay ku jawaabtay dawladda dhexe intaba cidad u hadal dirteen saara waxaan u sugi weynay waxaan noo muuqatay saaxiibkayga dadka ku jira Maxamuud Anwar Iqraamiyo iyo saaxiibadii in ay doonayaan inay xildhibaano qortaan already xildhibaanada ay hadda soo saari doonaan 2 bilood ka hor waa u qornaayeen ay xaasib maxaan ku yiraahdaa proof in oo maxaan ku yiraahdaa 2 bilood ka hor ay u qornaayeen odayaashan hadda oo macamilka badankooda ay samaysteen waxa weeye waa formalita ay marayaan waxay rabaan inay dadka tusaan in odayaal wax soo qorayaan hal xabo ay soo qorayaan ma jirto iyadoo aan 2 bilood ka hor waa u qornaayeen taas waa wax loo yahay intaa marka la isku wada daro oo ayna iyagii maamulka ahaa ay xadgudubkaa samaynayaan caalamka anagu waa tusamay waa arkeen Soomaalida anaga waxay siyade doorasho waxay ka dhacdaa dawlad goboleedyada Soomaaliyeed oo dhan waxay ka dhacdaa dawladda federaalka oo dhan intaas oo sanay ka dhacaysay waxa weeye noocyada ay doorasho u dhacdo waa la yaqaanaa noocyada waa inay u dhacdaa waxa la yiri oo ay ku darsadeen 3 weekend mid baan kala baxay adduunka xagee taala waa ceeb waa fadeexad waa meel ka dhac waa wax laga xishoodo waa dad ka baqaya inay doorasho galaan waa dad doonaya inay ku noolaadaan maxaan ku yiraahdaa ii tanaazulo iyo wax ila tartamaan waayo kaligeeyba maartay meesha soo istaagay ma shaqeynaysa waxaas waxa ogolaadaan doorasho xor iyo xalaal odayga dhaqanku ha madax banaanaado beeshiisa ha la tashado hal qof soo galo kursigiiba 75 xildhibaan halka lagu xareeyo saduuq dhalaa hal la dhigo caalamka goobjoog ka noqdo qofkii halka ka soo baxa hadii Maxamed Sayid ka soo baxana waa la shaqeynaa hadii Axmed Maxamed Faarax ka soo baxa waa la shaqeynaa hadii sidii ka soo baxana qof kale ka soo baxana waa lagu khasbay in la shaqeeyo أنا صار ربطية لا ما دعيت ما لا دين كذا عدانا مجلس وحير إيه كذي مركل بدي نبأ عن هذا دين عاش أنت راح بنان وقصين دونا قضب كذا هي سو وقصين دونا وحنجعلان لها إن بروفيسور عبد الوهاب عن سيو بل وهرنتي إن لبدينا دين وحكة بحسن عرفتك بحسن بروفيسور سو لو إن واد مقشة دين عيدا جبلان دور الشدي إن وقت جدي هذا يقولوا يهاي هذانا حيصده هر لإن عبور ميان أيام وقت وحتى ضد كمجالات السود إنه شيء
sheegayaan marka maxaad oran lahayd saare waxaad moodaa in yani Jubbaland ay hareynayso duruur coladeed iyo jawi coladeed maaragtay waxaad moodaa wadada loo qaadayo doorashada inay qodaxan badan tahay rakaxan badan tahay waxaa meesha aan ka marnayn in gacmo shisheeye ay meesha ku jiraan ama gacmo micnaha yani caalami inay ku jiraan ama gobol ama wadamada jiraan ka ahaadaana ama wadamada carbeed ha ahaadaana ama dowladda dhexba ahaata taa marka waxay keentay marka danooyin fara badan oo isburinaya meesha inay yimaadaan haddii marka badda Soomaaliya isu taasuri leedahay oo macnaha aqligu talin leeyahay xigmadda ay talin leedahay ayadoo maanta yani xidad iyo maartay Maxamuud Sayid labadaba maanta saaxiibo walaala ah oo intay fadhiistaan maanta masiirka ummadda ay ka talin leeyihiin ayaan darada Soomaaliya haystay kamid ah maartay maxaa yeelay dadkani waxa weeyaan in hadda colaad hore la geliyo oo maanta wiil Soomaali meesha uu ku dhinto mas-uulkeeda waxaa qaadan doona cidda maanta mas-uulka ka ayaa qaadan doonta taariikhdana way qori doontaa haddii aan la baajinin oo lasu tanaasulin oo macnaha compromise aanan la samaynin doorashada ma dhici kartaa waxba arrimadu ma dhici karta mid waxa weeyaan hadday qolooyin ku shubtaan ay dhahaan maartay kasoo qaadi tusaalahaan kasoo qaad in macnaha yani madaxweynaha iminka talada haya maxamed madoobe ku Axmed Maxamed Islaan hadda wuxuu way Axmed Maxamed Islaan hadduu ku shubto waxaa dhici karta marka inuu waayo legitimacy macnaha dowladda dhexe inuu waayo suurtagal ama wadamo qaar ay ku gacan seeraan haddii dowladda dhexe cid ay wadato ay ku shubatona waxa weeyaan colaad ba marka gobolka hareynaysa oo macnaha kooxdan kaloo kasoo horjeeda Maxamuud Sayid iyo kooxda kale ayagana ma aqbali doonaan marka sida ugu wanaagsan waxa weeyaan in yani gacmaha shisheeye ku jirta dhinac isaga riixaan caqliga xigmadu ay taliso oo macnaha waxuna isku waafaqaan doorasho nabad ay dhacdo Afrika inta badan doorashada Afrika ka dhacdo marka xalaal maba noqotaba Kenya hata noqon weyday waxa weeyaan waxa la filayaa oo kaliya warsi amni oo anaba u dhacday si amni ah oo amaana doorashada ugu dhacday taa horta la eegaya يعني waxaa doorasho amaan leh oo uu dhig ku daadanin oo wiil Soomaali isku ku dhimanin oo wiil Soomaali isku ku barakicin uma Soomaali isku ku barakicin waxa aan doonay inay dhacaan taa weeyaan marka taana waxay ka go'an tahay walaalkii Maxamuud Sayid iyo ninka la xidid inay wada fadhiistaan wada hadlaan oo macnaha ummadda la jahawareerin oo macnaha dhinacyadaas aan la keenin marka waxa weeyaan waa inay ka fikirayaan loo baahan yahay waayo aad baad umahadsantahay halkaaga ii joog waxaan ku noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland inta aan xasuusto Jubbaland waxaa jirta in cunugii ku dhashay maalinkii qalalaasa uu ka bilowday hadda uu ku ilmo dhalayo mar dhowna laga yaabo inuu awood ku noqon karo xataa dadka ku dhaqan Jubbaland oo qabiilo kasta oo Soomaaliyeed isugu jiro dhibaatooyin way soo daashatay hadda waxyaabihii ugu dambeeyay sanadii ugu dambeeyay waxaa la rajeynayay inay degtay oo xogaa xataa ammaanku uu macnaha xogaa wax isbedela qabaa'ilaadka iyo wixii is haystay noloshii iyo mustaqbalkii Jubbaland ee rajada laga qabay sideed ku hirgelin kartaan adinka oo wax dhibaato ah geysanin oo maamulkii ah oo haddii doorashada idinkaga adkaadana aad talada ku wareejin kartaan haddii kaleetana aad dadkii deegaanka iyo qabaa'ilaadka isugu soo dhaweyn kartaan Maxamuud saar horteed baa mahadsan tahay aad iyo aad waxaan u ogahay inaad xoogaal u tahay deegaanada wax ka jiray shirkadaha kala gedisan baa marba guruub qabsanayeen maanta dawlad baa ka jirta ummad heshiisay oo hal calan leh oo dastuur leh oo baarlamaan leh oo golayaal fulin leh oo hay-ado dawli ah leh baa maanta ka jira Jubbaland dhulkaanu waa ammaan siyaasadana waa halkeeda amnigana waa halkiisa waxaan aaminsanahay su'aalaha qaar waxaa guddiga madax bannaan oo doorashada inaad weydiisaan xaq ugu leedihiin afraaca doorashada iyagaa dejiyey shuruudaha musharaxiinta iyagaa dejiyey cidda ku guulaysatay inay isregistrayso oo qaadato shahaadada musharaxnimada ah iyagaa sameeyey cidda ku guulaysan weyday ama dib ugu noqotayna ayagaa garanayo meesha nidaam baa ka jiro saaxiibkay aniga asiga 30 sano saaxiibo nahay dadkana waa ka wada dhalanay waa naqanaa odayaasha Jubbaland oo sida uligiisa xildhibaanka ka dhigay xilligii dawladii Xasan Sheekh la dhisay ergadii dooratay xilligii hadda ugu dambeysay doorashada Jubbaland lagu qabanayna keentay xaggee jugaaca waa xaq loo leeyahay inuu xildhibaanada soo xulo marka waa saas waa su'aal aniga tii kale waa saas oo kale waxa weeyaan annaga intaan ognahay ka mas'uuliyad ahaan iyo khabaaraadkan hayno odayaasha xaq u yeeshanay soo dhisaan baarlamaanka labadoodii baa ka maqan labadoodii xamar bay sanad joogeen xamar bay sanad fadhiyeen kala soo Jubbaland lagama casuumin xamar bay ka yimaadeen dal la ururiyay oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inta la geeyay kaarar loo soo sameeyay odayaashan baad hogaaminaysaan baa loo soo dhiibay professorkan ku raacsanahay waxa meesha ka socdo iyo buuqa yeerayo iyo shidada waa wax ka baxsan nidaamka Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland ka baxsan weeye saaxiibkay
cabdishiid xidig haddii uu registration ka qaato shuruudaha nidaamka meesha loo dejiyay inuu raaco tan sababta uu ku tarsamo dadka ugu nasiibka badan inuu ku guulaysto ka mid noqon lahaa muusa yeelin aniga waxaan u arkaa inay musharaxiin aan madax banaaneen oo siyaasad kale ka dambaysto inay ahaayeen kadibna lagu yiri processka oo aan anaga iyo ku heshiinay Jubbaland ma sharaxi kartaan wasaaradda arrimaha gudaha xeer u musaamaxayo iyo dastuur u ogolaanayo inuu jirin marka diibay daba galeen taasoo ku waayeen xuquuqdii ay musharaxnimada ku qaadan lahaayeen Jubbaland doorashada waa ka dhacay sida guulaysanay inta ka baxsan cidda keenta ayaa mas'uuliyadda qaadanayso ummadeeda iyo deegaankeeda dhibka soo kordhisay xidigan siiyo waa mahadsantahay saar markale horta waxaan rabaa professorku waa mahadsan yahay aada u mahadsan yahay anoo aadna u salaamaya waxaan dhihi lahaa inuu dhab u taabto horta xaaladda jirta professorow annaga waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala oo midda ka dhacda Soomaaliya oo kale oo deegaanada kale ka dhacda inay ka dhacdo war 20% 30% ha xadaan ama hadooba 20% 60% doorasho xalaalaan u baahannahay macallinow waxaa rabaa inaad keentid wax khaldan aad sheegtida laga rabaa nimanka diiday inaan issharaxno oo campaign garayno waad ogtihiin labadiiba markhaatida ka tiiriye saaxiibkii sayid airportka Kismaayo ka soo lugeeyay anoo la diiday iga soo qaadi lahaa iyo dadkii ugu soo dhaweyn lahaa waad ogtihiin caqabadaha jira iyo inta maxaan ku yiraahdaa murashaxiinta caqabadaha haysta waxaasoo dhan baa muuqda doorashana la yidhi waxaa la yidhi doorasho haddana campaign lama samayn karo doorashana kama socoto waxay yidhaahdeen saddex qof baa naloo keenayaa mid baan ka qaadanaynaa anigii murashaxa ahaa anigii baa jaadkiina ajurigiina ah oo maxaan ku yidhahdaa hal ka qaadanayo waxay yidhaahdeen 10 qof baa u soo saxiixaysa qofka murashaxa madaxweynaha noqonaya xildhibaanadiina weli lama soo xulin xaggee shuruudahani applicable ku yihiin oo lagu aqbalay garayn karaa adaan ku weydiinayaa professorka waxaa soo haray arrinta oo saaxiibkay sayid uu ka hadlaayo oo ah maxaan ku yidhahdaa waa ammaanku waa sax calan bay leedahay waxaan ku yidhahdaa waa dawlad nidaam bay leedahay doorashadii baa laydinka rabaa inaad qabatid waxaa laydinka rabaa doorashadii inaad ku tirtin haddaad dadka wax fiican u qabateen dadku idin doortaan haddaydaan wax fiican u qaban oo dadku idinka leexdaan ka leexatid laakiin wax fiican baan qabanay annagaa joogayna meesha ma taalo waxaa soo hadhay dhinaca murashaxiinta waxa weeye midda uu saaxiibkay ka hadlay oo yidhi murashaxiin meel kale laga soo diray soo horta sideedaba muqdisho in laga yimaado dembi maaha waa caasimadii qaranka Soomaaliyeed in muqdisho laga yimaado ama la aadana inay dembi tahay in caasimada wadamo shisheeye la aadana inayna dembi ahayn wax fiican tahay horta aniga meesha ka timid shacabka Soomaaliyeed baa la weydiinaya waxaa soo haray odayaasha iyagii aba joogo aniga odayaasha uma yahay abukaato umana hadlaayo waana wax jira oo aan la qarin karin waa bariye shacab laguma qariyaa la yidhi way joogaan waana la yaqaanaa wuuna ogyahay maxamuud sayid iyo odayaasha iyo adiga taariikh khadka ku jira maxaan ku yidhahdaa hogaaminaya dooda aad baad u taqaanaa dhaqanka halkan joogiya sida ay yihiin oo maxaan ku yidhahdaa kuwo shalay iyo daraad abuurmay aan ahayna soo jireen ayaa meesha jooga waxaa meesha loo baahan yahay oo loo baahan yahay wanaag baa loo baahan yahay wanaagana waxaa la rabaa dadka meesha jooga Puntland bay ka dhacday doorasho federaalka ka dhacday koonfur galbeed bay ka dhacday maxaan ku yidhahdaa kala duwanaada siyaabo kala duwan ha u dhacaan laakiin at least 80% 70% hataa haddii aad si sax loo qabto waxbay ahaan lahay waxaa soo haday arrinta ku saabsan dhibaato inayna Jubbaland ka dhicin anaga dhibaato ka dhacda ma rabba wax kastaan u dulqaadan laakiin waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal inay dhacdo oo 75 xildhibaan oo beeruhu la yimaadeen marka ay la yimaadaan hool la galo dhalooyinka halkaa la dhigo kaamirooyinka caalamka la kor saaro xildhibaanka loo yeero warqadoo cad la siiyo uu codeeyo halkaa laga soo saaro qofka ku guuleysta uu noqdo kii ku guuleystana aan uga shaqeyno intaasaa loo baahan yahay intaas sidii lagu heli lahaa yaa loo baahan yahay diidna garla calina garla looma baahne waxaa loo baahan yahay hebelow waa gar daran tahay hebelow gar aad leedahay professor cabdiwahaab shacaab samed aan bal siiyo hortaray cabdirashiid degdeg buu ku saxsan yahay waxaa weeyaan inay ka dhacdo meesha doorasho xalaal ah oo macnaha runtii transparent ah credible ah lagu kalsoonaan kara inay timaado waa waajib saaran nimanka talada haya weeyaan nimanka talada haya waqtigoodu dhamaanayo inay sameeyaan jawi macnaha yani waxa weeyaan cadaalad wax ku dhici karto waxa ayaga dad ugu jirtaa ummadana dad ugu jirto cabdisa uu ku saxsan yahay dadka macnaha waxa weeye dadka inay si xor u campaign gareeyaan fikradaha ay doonayaan wadanka inay ku maamulaan ay gadaan يعني gobolka waa gobolka ugu furbaaqada wadanka Soomaaliya weeyaan waa gobol ana xoorihii iyo daarihii iyo kalluunka yani waxa ku lansaday weeyaan
haddii micnaha gobolkani uu hagaago oo gobolkani micnaha gobol micnaha maamul fiican uu ka dhasho oo dad fiican oo xikmad leh oo micnaha vision leh ay qabtaan waxa weeyaan waa gobol micnaha Soomaaliya tusaale looga qaban karo weeyaan. adigoo mahadsan Professor Cabdihaab Sheekh Cabdisamed sida muuqata hadda IGAD ayaa dhowrkii cishe la soo dhaafay ku sugnayd magaalada Kismaayo ilaa iyo 4tii bishan Agoosto waxay soo saareen war-saxaafadeed ay uga hadlayaan doorashada ka hor oo ay leeyihiin doorashada Jubbaland oo hagaagto waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya hanaankii dib u dhiska iyo dawlad wanaaga uu ka hirgalay nabadii iyo ammaankii iyo deganaanshiyaha iyo kobaca dhaqaalaha iyo wax walbana la amba qaadayo marka bal IGAD markaad fiirisid war-saxaafadeedkeedan dhinacyadu way la kulmeen odayaasha dhaqanku way la kulmeen ururada bulshada ay la kulmeen maamulka Jubbaland ay la kulmeen musharaxiinta ay la kulmeen maxay ka bedeli kartaa sida haatan ay wax yihiin Sara farqigeedu waxa weeyaan waayaad la tuqada su'aalo badan baa ka tahay runtii marka dhabla laga hadlo waxyaabo badan bay IGAD ku jiraysan inay samayso laakiin imanka waxa weeyaan IGAD waxa hor yaala in micnaha wax ay ku heshiiyaan labada dhinac isku horjeedin ay ka shaqayso oo ay dhexdhexaadiso oo micnaha si dhab u dhexdhexaadiso oo si dhab loogu hadla qadiyada in maanta ma ka tahay qadiyada marka laga wada hadlayo doorashada in si sax loogu hadlo in yani dadka micnaha waxa weeyaan waasida soo xulaya barlamentarianka inay yihiin waasida saxda inay yihiin waasida micnaha yani gacanta lagu soo qoysan noqonin oo micnaha waasida waa sax u yahay dadka matali karaya xor u yahay fikirkiisa xor u yahay qofka micnaha uu isagoo dooran xor u yahay ammaankiisa in la sugu karayo aada jiblayn iyo macnaha waxa weeye cabsi gelin in barna lagu qabanin marka IGAD waxa loo baahan yahay maadaama imanka macnaha waxa weeye Amisom inay mas-uul ka tahay ammaanka ay mas-uul ka tahay in odayaasha ammaankooda ay sugto in liiska micnaha lasoo gudbiyay ay sax yahay inay ku wada qanci karaan labada dhinac iska soo horjeedan ana siyaasiyiinta ay ku qanci karaan inay keento in maamul cadaalad ah oo micnaha oo sax ah oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhigi karta doorashada maanta ka dhacaysa yani Jubbaland ka dhacaysa mid xalaal ah oo sax ah oo micnaha waxa weeye caalamku aqoonsan karayo dowladda dhexe ay aqoonsan karayso micnaha waxa weeyaan yani credible ah dadka shicibka ku nool Jubbaland ay aqoonsan karayaan taa ayaa loo baahan yahay marka African Union inay ka shaqeeyaan oo si sax ay uga shaqeeyaan African Union waxaa loo baahan inay midoobaan maanta ay waxaa dadka inay isku soo horjeedaan marka inay midoobaan loo baahan hal boqol ay qaataan oo micnaha wax sax ah oo dhab lagu kalsoonta meesha ay keenaan aad u mahadsan horta arrinta IGAD baan rabaa in yar professorku waxaa laga yaabaa waa ka maqaya laakiin anaa Kismaayo joogay inta ay joogeen oo dhan IGAD horta waa timid halkan raga khiyaara yimid anoo aada ugu mahad celinaya laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaas waxaa loo diiday access ama dhaqdhaqaaqii ay ku arki lahaayeen cidda ay u baahdaan waa laga xayiray yaa u diidaya annaga murashaxiinta maamulka dadka hadda jooga ayaa ka xayiray dhaqdhaqaaqii dad kooban oo iyaga ay ugu talagaleen oo ay u diyaariyeen oo ay maxankooda xafifiyeen waxa ay ka hadlayaan ayaa loo diyaariyey dhinac kastoo ay tahay waxaa dhacday anaga murashaxiinta waa la kulannay waxaana kula kulannay xarunta UN-ka airportkan kula kulannay odayaasha dhaqanka ay la kulmeen oo airportka kulanka weyn ka dhacay Sara itaadi siday ku timid baan rabaa inaan kusoo odayaasha dhaqanka inay la kulmaan wax sahal ku yimid ba annaga waa laga xayiray dhaqdhaqaaqii oo dhan inay cid la kulmaan cid loogu talagalay oo loo diyaariyey oo maamulka u diyaariyey oo Maxamuud Sayid iyo tiimkiisa ay u diyaariyaan maana hal qof oo kale inay la kulmaan waa laga ilaaliyey laakiinse annaga aqoonta aan u leenahay iyo connectionska iyaga waxaan suura gelinay inay annaga nala kulmaan oo xarunta UN-ka airportka ay nagula kulmaan markii loo diiday magaaladii inay kulan ku sameeyaan waxaa dhacday markii halkaas ayaa referensiga ka yimid odayaashii laga qarinhayay inay la kulmaan oo annagu aanu keennay inaanu dhahno odayaashaasaa lagama maarmaan inaad la kulantaa shalay waxay suura geli weyday odayaasha 3 meelood baa lagu ballamay oo la yidhi halkaasaan idinku imanaynaa oo suura geli weyday horta ma ahan adduunyada waxaan jirin iyo qof rabitaankii iyo qof eedii ma ahan wax xaqiiqda laga hadlaa IGAD waa timid annaga waxayna weydiisteen inay arkaan guddiga doorashada waxay la kulmeen guddiga doorashada waxay la kulmeen odayaashii xildhibaanada xulayey oo isku dhan oo reer Jubbaland ahaa waxay la kulmeen bulshada rayidka waxay la kulmeen xildhibaanada qaranka oo goobjooga ka ah doorashada labada aqalba ka koobnaa kadibna waxay la kulmeen musharaxiintii hore ee diiday inay registrationka qaado damaca musharaxnimada ku jiray oo magaalada guryo waaweyn ka degan oo ku xoolo qalato ayagoo aan musharaxnimadii qaadanin ayaga ayaa waxaan ku lidi waxaad kula kulmi kartaan xarumaha dawladda meelaha ammaanka ah oo meel alle meesha adinku degan tihiin saaxiibtay xidig iyo raggiisa ayagaa doortay inay UN-ka kula kulmaan
annaga maana faragelin kadib leegad waxay noo sheegeen markay liistiga xaqiiqda ahaa raadiyeen inay laba oday maqan yihiin odayaasha dhaqankana ay u sheegeen labada odayna xaq baad u leedihiin arkaa mid waxay ka diidiidan yihiin arka annaga waa casuumay guddigii waa casuumay waa naga mid ayagana way la kulmeen horta runtii professorka waxaa laga yaabaa inta badan baraha miidiyaha iyo waxaan waayadan dambe soomaaliya kala geeyey inuu daba socdo xaqiiqda Jubbaland waxay u hawlgashay doorasho xor iyo xalaal ah inay qabato hal sano processkan soo socday hal sano soo socday hay'adaha dawladda golaha wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland baa soo abaabushay abraac iyo xeerkii hore guddigan mandatekiisa waa dastuuriyan baarlamaankiibaa meelmariyey sanadkaa markuu bilaabanayay guddigan baa la dhisay guddigan waa madax banaan yahay doorashada iyagaa maamulayo waata daqiiqad wax ka yar igu soo hay-adaha dawladana soo u shaqaynayaan ciddii xildhibaan fuli lahayd iyo ciddii xildhibaan u tarsamaysay iyo ciddii madaxweyne u tarsamaysay iyo guddigaasna santar bay isu yihiin runtii marka laga hadlo Jubbaland doorasho xor iyo xalaal ah inay qabata ayay ka go-an waadna arki doontaan siday u dhacdo beentana way hari doontaa siyaasadda ka imaanaysa waxa Jubbaland iyo dadkeeda ka baxsan oo banaanka ka imaanaysa oo ku dhisan nin baan jeclahay oo waxaan rabaa inaan madaxweyne ka dhigo ninna waa necbahay oo waxaan rabaa inaan meesha ka saaro oo faragelinta ah weeye waxa jahawareerka abuurayo musharaxiintii damcay inay tartamaan oo xamar laga soo abaabuliyo oo gruupka ahaa waata taas dib uguma noqonayna hadda adigoo mahadsan bay kismaayo joogaan madaxweyne ku xigeen eelaboorka laga soo dhaweeyey staff baa la siiyey guryahay degan yihiin bulshada ay la shiraan waa tuma cidda maalin keliya wadda ka xaniftay waa inay caddeeyaan weye waayahay taas dib uguma noqonayna hadda gabagabadii aan maraynaa xalka isma saaro annaga waa xalka ii sheeg gabagabadii ayaan maraynaa dastuurigan u dhaaranay halka waxaa weeye Jubbaland doorasha ka dhacayso baarlamaankiina waa loo tartamayaa odayaashii iyo beelihii xodxodashaa socoto ciddii noqon lahayd xildhibaanadii hore oo tartamaya iyo xildhibaanada cusubba cid ilaahay u nasiibaa guulaysani baarlamaankii waa dhismayaa kadibna halkaas suuq la dhisayaa madaxweynihii baa loo tartamayaa ciddii kusoo baxdo codeeriga yeelataana la dhaarinayaayo Jubbaland 4 sano dambe hogaaminayso halka waa in doorashadaas iyo habraaca guddiga doorashada ay dejiyeen madax banaan iyo nidaamyada iyo shuruucda doorashada loo dejiyey oo dowlad goboleedka ay mas-uuliyaddeeda leedahay waa in loo hoggaansamo wey halka aad baad umahadsantahay nincalays nancadays wax xeerka ka baxsan Soomaaliya kusoo daashay cid yeelaysana dib ugu noqotana ma jirto waxaan siinayaa mudane xidig inta aanan u gudbin professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed adigana wax ka yar daqiiqad maxay kula tahay xalka haddaad iigu soo koobto saara adoo aada u mahadsan horta saaxiibka maxamuud sayid aada waxa u fiicnaan lahayd xilliyadii barakeysnaada lagu jiraa ilaahay inuu ka cabsado doorasho xor iyo xalaalna uma socdo wanaag inuu meesha ka dhacana ma rabo inuu maxaanku idhaahdaa si fiican oo xataa boqolkiiba kontona wax u maamulana ma rabo xildhibaanada odayaashu ay soo qori lahaayeen asaga gacantiisa ku qora rag oo dhani inta tiimka ayaga wada qorta odayaashii oo dhanna waa la baakin gareeyay 25 iyagoo waa kuwa banaanka fadhiya halka annagu waxaan u aragnaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca siday u bixi jireen doorashada lagu celiyo guddi doorasho ama kan ha ahaado ama mid kale ha ahaado ama kaanaga ha ahaado ama iyagoo la isku baray ha noqdo meeshu ka dhici doono waa meesheeda laakiin midka muhiimka wuxuu yahay odayga dhaqanku inuu xildhibaanka soo xulo xildhibaanadaasi ay noqdaan xildhibaanadii murashaxiintu inay tartamaan shuruudihii la raba lagu keeno shuruudaha inaan buuxinaynin anaga ma jiraan laakiin waxaan rabnaa doorashadaasi xor iyo xalaal inay noqoto 70% in aliista ay macquul tahay 30 ha xadaan ama ha boobaan waxba kama qabo Afrika oo dhan bay ka dhacdaa waa gaari doonaa 100% inay noqoto waxaan ka rabnaa 70% xor iyo xalaal inay ka dhigaan eedaynta kale iyo maxaan ku idhaahdaa dadka kale iyo xagxagashada kale intay iska daayaan Soomaali oo dhan baa markhaati ka adduunka oo dhan baa markhaati ka sida wax u socdaan laakiin boob iyo cagajugleyn iyo dhibaato iyo maxaan ku idhaahdaa qofkii iga soo horjeeda ugaaskii iga soo horjeedaan ruqsaynaya murashixii iga soo horjeeda waqtigaa ka dhammaaday murashaxa aanu arkay inuu maxaan ku idhaahdaa tartanka uu waxaasi wax la qaadan kara maaha waxaana rabnaa Soomaali iyo caalamkuba inay arkaan waxaana soo jeedinayaa bahasha in dhexda la dhigo oo doorasho xor iyo xalaal lagu laabto nimankaasna nasiibkooda ay qaadaan oo ilaahayna aaminaan ummadoodana aaminaan cidna xoog iyo maxaan ku idhaahdaa si wax kagama qaadan karaan
waata ugu dambeyntii waxaan siinayaa professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed daqiiqad wax ka yar adiga qudhaada halka maxaad is oran lahayd oo reer Jubbaland iyo dhinacyadaba u haboon oo in lagu soo dabaalo inta xaaladda waxaan kula talin lahaa qolooyinkan tartamaya ama muxaafadka ama mucaaradkaba ha ahaadaane inay ummadda inay u turaan ay isu tanaazulaan yani wax yani ummadda u cutumi kara ay ku heshiiyaan waa in la ixtiraamo odayaasha dhaqanka in la ixtiraamo oo macnaha ay xor noqdaan oo si xora wax u xuli karayaan waa inay dhacda doorasho saxa oo xalaal ah oo at least macnaha yani ummadda meesha ku nool oo wada cutumi karaysa waa inay dhacdaa dad macnaha waxa weeyaan yani doorasho la oran karayo doorashadani macnaha at least macnaha waa macquul oo ummadda ay cutumi karta maartay waa in ummadda loo turaa waa in dadka loo turaa waa in macnaha yani qamadka waxa weeye la ixtiraamaa waa in macnaha uusan dil ku daadan habeera doorashada uusan dil ku daadan maxaa yeelay adduunka dhan baa eegaya Jubbaland eegaya caalamka dhan baa dan fiirinayo war arrintu way ka weyn tahay Kismaayo way ka weyn tahay caalamka dhan baa ninka eegaya war nimayo u dhaqma sida dad muslimiin u dhaqma oo si tiraazula oo si tura oo walaal noqdo oo wax isu qura aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba mudanayaal doodan aad baan ugu farxsanahay inaad igala wada qayb gasheena aad baa umahadsantahay guud ahaan barnaamijkeennii saaqdaada toddobaadka ayaan toddobaadkan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay oo aan u mahad celinaya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Kismaayo professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaasina ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo isagu kamida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Jubbaland kuna sugan Kismaayo doodina waa naga inta intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo